anigoo ah magacayga Cabdiqani Saciid Carab ahna gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta shirkadda Daus oo aan wada shaqeyn bilownay July ama bisha Luulyo loo yaqaano sanadka 2016 ilaa haddana aan wada shaqeynayno taasoo ah muddo hal sano ka badan muddadaas aan wada shaqeynayno oo halka sano ka badanna aan wada qabanay shaqooyin kala duwan oo ay ugu badan yihiin waxyaabaha muuqaalka hay'adeena soo bandhigi kara hadday noqon lahayd qoraalada buugaagta lagu daabaco ama waxqabadyadeena kala duwan oo la soo koobay inay macnaha talo badanna naga siiyaan muuqaal fiicanna ka soo saaraan wada shaqeyntaas halka sano iyo inta ka badana wixii aan wada qabanay maaha wax halkan aan ku soo koobi karo laakiin waxaan ka soo qaadan karaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan isla qabanay Daus markii hore aan isbaranaynay waxaana dhex maray shirar tiro badan marna aan ku yeelanaynay xafiiskana marna aan ku yeelanaynay xafiiskooda shirarkaas badan oo inta badan anaga laftigeena na gelisay ama aan u arkaynay dad aan wax qaban karin markaan shirarkooda badan aragnay inta badan ay Soomaalidu jecel yihiin markay qofka wax weydiiyaan wixii ay weydiiyaan in isla markiiba helaan laakiin waxyaabaha Daus oo wada shaqeyntooda markaan bilaabaynay aan kala kulana waxay ahayd inay rabaan inay ku shaqeeyaan balan inay rabaan marka hore qofka inay fahmaan waxa uu rabo qofku markuu wax rabo uu sharaxana kadibna waxay siinayeen intaas wax u qaban talooyin badan ay u arkaan in sida uu wax u rabo ay wax ka bedeli karto taasoo anaga aan dhinac oo ay naga saameysay maadaama aan waddanka aan deganahay uu u samaysan yahay waxaad sheegtid hel waxa lagu sheegay aan inta badan dadku aysan dhageysaneen ee dadka tooda u cadda taas saameynta ay nagu samaysay Daus wax badan ay naga bedeshay oo ku saabsan isdhageysi in ay macnaha sameeyaan presentation ama warbixin aragti ah oo dadku isla wadaagayo leeyahay wixii aan ku qabanayno noocaan ay noqonayaan noocay jecesha inay noqdaan oo waxyaabo aanan hore ugu arkin aysan ahayn shirkadaha shaqadan oo kala haya waxyaabaha marka inaan la shaqeyno Daus ay kaga wanaagsan tahay inaan dibadda ka shaqeyno markaan soo aruurino aan waxaan ku tilmaami karaa ama ay tahayba dhinaca waqtiga markii hore anaga wixii aan waxqabadkeena ay dhalinyaradu ay qabtaan dhinaca noo qaabilsan communicationka ama noo qaabilsan dhinaca media ayaa noo qaabilsan arrintaas waxay aruuriyaan inta flash lagu shubaa la diri jiray laakiin ma nagu soo noqon jirin su'aalo ku saabsan meeshaan maxaa ka qaban kartaa taasoo ah macnaha inaanba waqti aan isku heli karin oo marka ugu badan ay tahay in telefoon isku helo annaga oo noqonin managerka meesha iska leh annaga oo noqonin qofka shaqada toos noogu qabanaya ayadoo waqti ku lumaayo ayadoo waliba ay jirto inaadan suggestion ama macnaha soo jeedintaada ay sida ay rabto ku gaari karin taasoo marka noo sababto wixii naloo soo sameeyo inaan qaadano annagoo marka hore aan iska controlin taas horta waxaan ka raysanay dhinacaas waxaana noo bedeshay in nala tashto in waxaan rabnaa naloo sameeyo in waxayna waqti la geliyo inaan ka hadli karno inaan wax ku celin karno inay talana sii karaan inaan annagana dhihi karno saan looga dhigo taas horta waa ka raysanay waqtigiina wuu nooga fiicnaaday sidii hore oo inaan maanta Daus gaaro waxa iga xigta 5 daqiiqo laakiin meelaha wax u diraay inaan gaaro waxa iga xigta 3 maalmood